والله الحمد لله دمانتين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. marka hore waxaan ku ducaysanaynaa inuu Ilaahay nagu anfaco waxaynu sheegayno waano iyo wacdi bale la sheegaya iyo ka loo sheegay labadaba abaarahana Allah inaga soo jebiyo wixii aafaad umada haystana Allah ka dulqaado ramadaanna bisha barakaysan nabad iyo barwaaqo Allah inagu gaarsiiyo. inta kadib kelmadu la iga codsaday laba qaybood bay isugu jirtaa oo cibaadada kamid ah. qayb waxa weeye bisha ramadaan iyo ahkaamteeda. ahkaamtu waxa weeye cilmiga ay leedahay fiqi ahaan. iyo kelmada labaad oo ah siyaam waxa la xidhiidho la ogsoon yahay qiyaam. saddex arrimood baa bishan lagu camirayaa bisiyaam wal qiyaam wal qur'aan. soom baa lagu camiri maalintii habeenkiina qiyaam iyo sala joog Ilaahay loo taagan yahay baa lagu camiri habeenkii iyo maalintii labadaba qur'aan baa lagu camiri. marka hadda quraanka kama gaarsiin karna iyo fadligiisa marka la leedin sheegay labada kale inuu midba xooga ka taaban insha Allah. ahkaamta iyo nidaamku bisha ramadaan u dhigay islaamku 6 qodob ayaan midba wax yar ka oran doonaa. fadligeeda xukunkeeda bisha ramadaan iyo xigmada ku jirta arkaanteeda shuruudda oo isugu jirta shuruud as-sihha wa shuruud al-wujub sunnayaasha bishan ay leedahay waxyaabaha buriya wal mubaahaat iyo waxyaabaha qofku ka shaki kara laakiin xalaasha waa sideeda qodob ayaa dul mari doona. qodobka horeeya waxa bisha ramadaan fadligeeda hada jeer inaad shayga fadligiisa ogaataa faa'iidada ay leedahay waxa weeye dhiirigelin baad helaysaa waad jeclaanaysaa waad u cishqiyaysaa kamana daalaysa. rasuulku sallallahu alayhi wasallam xadiidku inoogu sheegay fadligeeda aad buu farabadan laakiin uu quraanka soo qaadaya khudbadaha iyo duruusta la idinku sheegi doona insha Allah bisha ramadaan dhexdeeda. xadiid saxiix muslim ku sugan min xadiid abi hurayra ayaa nabigu wuxuu tilmaamay sallallahu alayhi wasallam as-salawaatu al-khams wal jumu'atu ila al-jumu'ah wa ramadaan ila ramadaan mukaffiratun lima baynahunna idha tunibat al-kaba'ir ala ma'na al-hadith. inta u dhaxaysa labada ramadaan tii horiya ta dambe iyo inta u dhaxaysa labada jumcii horiya kan soo socda iyo inta u dhaxaysa labada salaadood salaadii maghribka cishaa'iga iyo wixii la mid ah Ilaahay wuxuu ku dhaafaa dambiyada u dhaxeeya. macnaha dad ramadaantii kala hore soontay Ilaahay dambigii buu ka dhaafay intii ka dambaysayna ta soo socota Ilaahay naga dhaafaya Allah inoo aqbalo. marka qofkii inta soo jeer loo dhaafay ee la mid maaha ka wixii oo dhan ay ku raran yihiin. ramadaanadii baa loogu dhaafay umradii baa loogu dhaafay xajkii baa loogu dhaafay jumcayaashii salaadihii waxa soo cibaadooyin oo isdaba taagan ayaa dambiyadii Ilaahay kaga safeeyay kaga saladeeyay. qofka kalena intaas ku raran yahay labadaas isku jannana noqon maayeen isku darajana maaha. marka fadliga weyn iyo faa'iidadaas bishan laga helaa in dambiga lagu dhaafaa wax qaaliya way laga helo dawladda iyo reerkaaga iyo caalamka oo dhan toona Ilaahay baa laga helaa subhanahu wa ta'ala. marka fadaa'ilkeeda kaasa kamida waxaynu gudbi lahayn bishan qodobka koobaad oo ah isaguna waxyaabaha ay ku suganto. bishan waynu sugaynaa Allah ina gaarsiiyo dadkuna way iska murmaan had iyo jeer way bilatiya may bilanin nabigaaba ka sii jawaabayba bishani waxa ay ku sugmayso. laba arrimood bay ku sugmaysaa buu nabigeenu cadeeyay sallallahu alayhi wasallam in bishii hore Shacbaan ay dhamaato oo ay tahay inaynu tiradeeda ognahay iyo in bishii la arka Ramadaan Shacbaan oo 29 dhamaadeen. sidaa waxa cadeynaya xadiidka saxiixaynka ku sugan Bukhari iyo Muslim xadiid Abi Hurayra radiyallahu anhu nabigu waxa uu suumu li ru'yatihi wa afdiru li ru'yatihi فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. وحا كسونتان بشان أرقينه أرقنا كعيدا دي لكن ضرورة ماشي قبصدان أما عيرو أما الضبيلو صدن كتهورة لما يسترع شعبان صدن كذا لبوحنا يعني دي رمضان لقد ترانا رمضان صدن كذا لما يسترع يعني وركبه وعدي لأنه محرين علم الفلقي ما رياش إلا أجاي saacada in la eega iyo farwaaweyn baa laynoogu qoray oo ay ka siman yihiin qofka mutacallimka iyo ka jaahilka ah ka miyiga jooga iyo ka magaalada jooga
dee bilbilataydaa lagu yihi eeg dayaxbaa lagu yihi eeg marka haddaad indhaha ku arki weyda xataa daruuri maaha qalabka weynuusooyinka inaad u qaadato laynaguma addoonsan isha caadiga ah fiiqana fayow marka lagu eego haddii la arkana sax haddii la arki waayana dee 30 baynu buuxinaynaa waaba iska dhib yartahay xadiidkaana saxiixana nabigu wuxuu ku cadeeyay sallallahu alayhi wasallam bisha iyada ah waxa ay ku sugmayso dadka isku deegaan ku nool qorraxdu mar u soo wada baxday la yiraahdo waa fi madla'in waahid mar bay araga ku wada soomayaan laakiin dadka kala duwan meesha ay degan yihiin iyo waqtiga qorraxdu u dhacday u soo baxdo de israaci maayaan inaga Japan isbaraaci karna inaga America isbaraaci karna isku maalin ma yihiin meelaha qaar ba 14 saacadood ama 13 inoo dhaxeeyeen maalin iyo siyaado marka arag ku sooma arag ku afura wadadka isku madlaca sida xadiidka ibn Abbas Qurayb tilmaamay inta waxa sii raaca qodobka isaguna oranaya tiirarka uu ku taagan yahay Ramadaan ama bisha Ramadaan soomkeedu waa cibaado faralo arkaan islaamkii kamid ah oo fadaa'ilkeeda waxa kamid ah kamid ah arkaan islaamkii tiirarka islaamku ku taagnaa soomka Ramadaan tiirar wuxuu ku taagan yahay saajkana tiirar buu ku taagan yahay salaadu tiirar bay leedahay wax walaalo dhisaaba tiir buu baahan iyo waxaya tiirarka ay Ramadaan soomkeedu ku taagan yahay arkaanta waa laba ithnaani ka horeeya waxa way an-niyya ka labaadna waa al-imsaaku 'an al-mufdarat inuu qofku niyoodo iyo inuu iska daayo soomka wixii ka jabinaya labadaas oo kaliya niyada waxa cadeynaya de nusuusta kala duwan ee quraan iyo xadiis bale ورب سبحانه وتعالى وحو له وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين تدك وحا لفرائين إلهي عابدان يقعوا عبادة وسافية ليه وقرم قفكيس مرافقين كرا قرم صافي كرا كرا ديوم إن ماشي نية جرت تاسنا وأرين آدي مهيبة النية وحكى الله الرسول صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى إنما صحة الأعمال منوطة بالنيات عمل الله يا عبادة أن وحى أيكو أن صحيا ونية أفكر قلبي كوكو تضاء عمل كان إنه دائما انتهى صومي هي إنه أبتيت حمها هيسو أو تعري هيسو أو صدا وعنا الاستجابة محاكا لصاريا هو النية مركز الدليل الذي نوى هو النية مركز لقاها الليانة معناه ما هي وحبة نقف آخر نويت صوم غد عن أداء فرض لا دليل ما لها تاس علماء قاركود ما هالشيء سيدا مذهب الشافعية ذاك لكن دليلان تشرين لا عصرة تذكر ما بوضع كرايا بوتشبيان marka waa in qalbiga ku sii qabsato marka afurayso marka cashaynayso marka suxuuranayso inaad aroorta soomayso maxaa ka dhib yarba taasina waxa weeyaan waa qadiyada niyada iyada ahi waa inay dhacdaa habeenimo oo soomka kala duwan oo soomka inagu soo socda Ramadaan faradka ah waa in qofku habeenkii soo niyoodo daan niyada habeenkii la imanin de maalintii baan u ansaxayn سدا واحد المامة حديث صحيح أصحاب السنة ابن خزيمة ركل بقى ورينيان نبي واحد من لم يجمع الصيام بالليل فلا صيام له على معنى حديث قفك هدي أنا هبين كي قان سنين أو أنا أورورين أو أنا قلبي سيسجى نية صوم له نية لو إنك عشان هو يسكر بيه بعد السحورنا يستوينا ضرورة أفريس وأنا ضرورة صوميش نية ده يتساق على فلامة laakiin soomka sunnaha ayuu ka duwan yahay haddii adigoo waxba cunin waagu ku bariyo gelinka hore aad go'aansatay inaad soomkii sunnaha soomto waad soomi karaysaa sunnayaasha iyo faradku meelay ku kala duwan yihiin oo laga yaabo sunnuhu inuu kaga fududaado taasina cilmi bay u baahan tahay waxaa qodobka labaad aynu noqon lahayna arkaanta ka mid waxa weeye al-imsaaku 'an al-muftaraat qofku waxyaabaha soomka ka jabinaya dee inuu iska daayo وين قاري دونا وحيابا صوم كبورية أما كتشبية قفكنا لقب بلابو مركواج وبريو إلى قرحة انت دعيس وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر اسكعون هذين كيلا انت واج وعداني
marka waagu cadaadana maxaa leeyahay thumma atimu siyaama ila alleyl soomkii aad bilowdeen subaxii markii waagu cadaaday ilaa habeenka dhammaystira habeenowna halkeed ka bilaabantaa markay qoraxdu dam tidhaahdo marka aayaddaas waxay caddaysay waktiga aynu afxidhnaanayno taasina waa laga maarmaan waxa markaas qofkii soomkii ka jabinaya waktigaa isagaa waynu arki doonaa ka burin doona intaa waxa sii raaca qofka waa qodobka afraad meelahaas ama shanaad qofkeebuu ku waajibaa soomka waa arrin muhiima fiqigii iyo qaanuunkii iyo nidaamkii islaamku u dhigay cibaadada ramadaan la idhaahdo ayaynu dul taagana oo ay tahay qof waliba inuu ogaado waa waajibaad ina wada saaran wey yuu ku waajibaa soomku haddii lagu su-aalo maxaad ku jawaabaysa calaa man yajibu calayhi siyaamu ramadaan bisha ramadaan yaa lagu leeyahy baa lagu weydiiyey haddaa qof muslimo caqli lahoo miyir qabo weyntay ka jawaab wuxuu ku waajibayaa qofka 6 shardi laga helay waa qof muslima oo miyir qaba oo qaangaara oo caqli leh oo aan safrin oo reerkiisii jooga oo daahir ah daahir maxaynu uga jeednaa ruuxii dumarkeed waa inay dhiiggii caadadii kii dhalmada aanay lahayn qof muslima oo miyir qaba oo qaangaara oo aan safar ku jirin reerkiisii jooga oo daahir ah shuruudahaasaa lagama maarmaana qofkaasuu ku waajibaa intaa isku hagaajistay kuwa kale ee aan shuruudaha laga helin waynu arki doonaa shuruudaha waxaa la yidhahdaa shuruud ulwujuub wa hunaaka shuruud sixa waxa iyaguna shuruud baa jirta loo yaqaano shuruuda ansixidda dadkeebuu soomku ka ansaxaabaa su-aal labaada oo waxaa jira qof aanu ku waajibin laakiin uu ka ansaxayo iyo qof aanu ku waajibin kana ansaxayn farqigaa udhaxeeya dadkii aanu ku waajibinaynu soo sheegnay 6daas ayaa qaarkood haddaan yaanu kuba waajibin hadday iska soomaan uu ka ansaxaa qaarkoodna kumana waajibin hadday isxilqaamaanna kamaba ansaxayo dadka markaa uu ka ansaxaya ama qofka uu ka ansaxayo shuruudaha uu yeelanayo isagu waa qof caqli leh waan waalayno nin waalan qof waalan waxba kama ansaxaa mukhtaar waa inuu yaho haddii xabad lagu qabto oo la yidhaha qasab ku soo miyuu ka ansaxayaa soo maba niyeysta waa la qasbay waa laba qof muslima gaalka wuu ku waajibayaa soonka laakiin hadda kama rabna dee hadduu soomana isagoo aan islaam ahayn kama ansaxayo ka afraadna waxa weeyaan qofkii daahirka ahaa daahir waxaynu uga jeednaa dhiiggii caadadii kii dhalmada waa gabadhii daahirka ahay dhadigii daahirka ahaa wey maaha ragga waa dumarka aan dhiigga lahayn hadday iyadii dhiig leedahay kumana waajibin kamana ansaxayo marka afartaa qof laba ka ansaxayo soonkooda halkaana waxaynu kaga gudubnay shuruudii loo xidhayay bisha ramadaan qofka soomaya soomkiisa waxaynu u gudbi lahayn arrimo muhiima oo ah cibaadadan haddii la dhisay oo la qurxiyey oo la dhammaystiray maxaa jebinaya waa inaad wada garataan waa inaad dumarka u sheegtaan waa inaad carruurta u sheegtaan waa inaad caamada u sheegtaan oo musabaqan intaan ramadaanba la gaadhin qof waliba casharkan uu iska sii qaybsan yahay maxaa soomka jebiya marka u horeeya waxaa jebinaya waa shay kaana jebinaya qallana kugu waajibinaya alaklu washurbu camda waa inuu qofkii waxna cuno waxna cabo isaga oo u kasaya oo aanay ka ahayn sidaa waxaa tilmaamaya xadiidka ay warinayaan culimada intooda badan ee saxiixa ah min xadiidi abi hurayra rasuulku wuxuu leeyahy sala allahu calayhi wasalam man nasiya wa huwa saa'imun faakala aw shariba falyatima sawma fainamaa acamahu allahu wasaqaahu qofka bisha ramadaan isaga oo sooman oo is-ilaaway iska cuna ee iska caba ha dhammaystiro soomkiisa macnaheedu waa maxay qofka u kasa bisha ramadaan isagoo sooman ee ogaan cuna ee u caba wuu ka jabayaa wey kii haddii la yidhi kama ahaa ha iska dhammaystira dhib ma jire kii uu kaska ahaa waa maxay macnihiisu
وأنا صومك كجوايا حديث كاسرعت وتلبامي وحيابها صومك جبنا يوحى كمذا القيء عمدا أو التقيء عمدا قفك إنه أغان إستجاه قاعية أما إذا والله عبد الله بدي عريق باي هاي سوف دونا يا خشاو فرتو أفك إسكج اليوم مركزو قفك إسكه قاعية معناه بتاوح ويا إن وصومك كجوايا وحتاوح كدوان هدي أو إسكيه قاعة قفك هدو إسكيه قاعة أو قاعة باي كتم بضته أو حجين وايو إسكاف لقنايا وحيس صا أفكيس السوق عندنا ديبر لقمايو هدو ديبر لقو كتشبي بيو كله لقنايا هدو لقنا وكتشبي يا صوم لكنهم قاعدة كحب بضته كتمي صوم كيسي ما تبينيش سداو حتى المام يا حديث كإستجونا السجان النبي عليه الصلاة والسلام وإنه أبو شرح يارين تاسوح ومن درعه القيد فليس عليه قضاء ومن استقاء عمدا فليقضي قفكهم قاعدوا كحب بضته هم قاعوا حرصوا لقوا ملا قله لقوا ملا هذا ما يستروي قفك لكن اسكهم قاعية وانو جفي سدا كتبيا صوم كيسي هنا سوق الله أي رسول كريم صلى الله عليه وسلم وحيابها قفكي كبرنا يا وحكمدا ليجي المضى يكي عادة وحيد نمرك هذا صوما أي شيء صوم كذي وجبه ما دام نفاسك كي من يجي المضى يدا صوما أي ليجي عادة وكي ما هاي كسلة نمرك دقيقة دي قدام بيسي مالك بها أهات مركي وصور دواء أفرق بحث هدو كي نادو إن كان الأذان قرح ذو أنا دعين مالك كاسي صوم كي وكشري قال أنا اللي أقول ليه mana soomi karayso inta ay caadada leedahay ma dhiigaas waxa waxyaabaha buriye kamida kafaara gudda waajibinaya inuu qofkii galma sameeyo xaaskiisii u galmoodo isagoo sooma bisha ramadaan dambi weyn buu ku dhacay ramadaanna waa inuu soo qaleeyo laba biloodna waa inuu soomo oo isku xidhiidhsan haddaanu karayna raashin bixiyo 6 miskiin waayo gaf weyn buu ku dhacay waqtigan waqti cibaado u carbuunan buu ahaa oo cibaado u xidhan marka inuu ciyaaro kala galo oo ehelkiisii u hamoodo waa arrin xadgudub ku ah cibaadadii xaqii ilaahay marka abaalmarintaas uu yeeshay xadiid saxiixa waxa rasuulka ka sugan sallallahu alayhi wasallam nin baa nabiga u yimi xadiidka Abi Hurayra warinaya waxa uu leeyahay halagtu ya rasuul allah qaala wa ma ahlaka waan halaagsamay maxaa ku halaagay buu leeyahay anigoo sooman ayaan xaaskii u galmooday marka nabigu wuxuu sheegay soomkii ka jabay xalkiina wuu raaciyay wuxuu sheegay inuu daa soo qalay la yimaado kafaar labadii bilood sooma ma karayo raashinkii ayuu markaa ka caawiyay sidoo u bixin lahaa waxyaabaa burinaya soomkii waxaa ka mid ah inuu qofkii iska keeno biyihii taranka waa qacadii oo kale marka soomkiisi waa jabaya waana aasim dambiila wey cibaadadina way ka jabtay waana soo qalaynaya waxa taa ka duwan oo sidii qacado kale haddii uu isku jinaaboodo qofkii oo biyo taranku ay ka yimaadaan isagoo hurda maalinkii sooman waxba kama noqonayo soom qofka sharcigu wuxuu kula xisaabtamaa oo uu ku dambaabaa wixii awoodiisa laakiin wixii awoodiisa ka baxsan qofka kuma dambaabo loomana qabsado qodobkana intaas waxaa isaguna sideedaad oo ka jabinaya soomkii intayna ka bixin arridda wa na'uudu billahi minha inuu qofkii gaaloobo oo diinta islaamka uu ka baxo siyaabaha loo gaaloobana dee way kala duwan qofku qalbigu ka gaaloobi karaa inuu gaalnimo go'aansado qowl buu ku gaaloobi karaa hadduu diintii ilaahay caayo ama islaamka ku dheeldheero ficil buu ku gaaloobi karaa oo ficilkii kufaarta inuu sameeyo lagu gaaloobayo marka gaalnimadaasina way ka jabinaysaa qofkii soomkii iyo wixii cibaadaha ay ku dhex jiray ilaahay baa wuxuu la in ashrakta la yahbatanna amaluhu haddaad qof iyo gaalnimo samaysto camalkaaga oo dhan wuu buraya oo baaba'aya ka salaad weysadii baa ka jabtay salaadii baa ka jabtay xajkii baa ka jabay soomkiina wuu ka jabay waxa la wuxuu sameeyo dhan waa ka buray intaa waxaynu uga gudbi lahayn shayga loo yaqaano mustahabbaatu siyaam soomka sunnayaashiisa sunnuhuna lama fudaydsan karo waa shayga cibaadada dhammaystira waa shayga ku kabaya markay kaa qoomanto cibaadadu waa shayga qurxinaya cibaadada shay waliba waxa uu leeyahay wax isbeer ah oo marka uu qoonmo lagu hagaajiyo
markaa shakisan oo la tolo waagii ma baryay mise ma baryo markaasaa wuxuu ku yidhi kul wa kul xataa laa tashuka iska cun oo iska cun jeeroo shakigu kaa baxo laakiin haddii mu'adinkii uu adaamo sii wadi maysida waad iska daynaysaa daliilkana aayadaynu ku soo marnay sunayaasha waxaa ka mid a tacjiil horta suxuurta intaynaan dhaafin sunayaasha suxuurta waxaa ka mid a suxuurtu waa ka mid dibdhigiddeeduna waa ka mid in la dibdhigo waaga lagu dhoweeyo 10 daqiiqa u dhaxayn jiray suxuurtii nabiga iyo adaanka salaada subax dambe waa suuratul xaqayn laga akhriyo in la qadar 50 aaya sunayaasha waxaa ka mid a tacjiilul fitr in afurka la dedejiyo oo marka la hubsado qoraxda inay dhacday waa in hore laga afuraa rasuulku sallallahu alayhi wasallam xadiithii saxiixaynka waxa uu leeyahay min xadiithi Salim ibn Sa'd la yazaalu an-naasu bi khayrin ma ajjalu al-fitr dadku weligood khayr bay ku sugnaanayaan sunnaha nabiga khayrkii u lahaa intay afurka dedejinayaan marka waxba meel baa madoobaatay iyo xaada lama arkay waxba kuma meeraysanaysid sidii dhaqanka Soomaalidu ahaan jiray laakiin qoraxdii ma inaga qarsoontay waa furayna inaynu taawarka fuulo ama minaaradda laynaguma adoonsanin manay dhicina dee wayna isheenu bay ka qarsoonto qolo kale inaga sii sheysay usii muuqataa way wareegaysaa ee waxaa muhiim ah dhulkaa bannaan inay ku libidho dee in loo dhagooleeyo ama laysu nasaqana maaha qoraxdu hadday buur weyn aad dhinaceeda fadhido oo tidhaahda way iga qarsoontay dee buurtaa ku gudba ama fooq weyn baad dhinaciisa fadhida dee fooqaa ku gudba marka waxaa laga hadlayaa dhul caadiya inay qoraxdii ka dhacdo markaasaa la dedejinayaa furka sunnuhuna waa sidaa sunnayaasha waxaa ka mid a alkafu camaa yatanaafa asiyaam inuu qofku iska daayo soomkiisa wixii ka jabinaya waxyeelaya ee ficil xun leh ee afxumo leh ee kuwii aynu soo sheegnay ee heerka gaalnimada aan gaadhsiisnayn sida caydii kaftankii dacaayadii been abuuradkii aflagaadadii waxaasoo dhan ee nacnacda ah qofka muslimka ahi lama imanayo uu ka fogaanayaa inta uu soomay sunna iyo faralba mar walba waa wax loo diiday laakiin adigoo cibaadaysanaya cibaadadaadiiba arrimahaasi ka naaquseenay ka fool xumaynaya rasuulku wuxuu sallallahu alayhi wasallam man lam yadac qawla az-zuuri wal 'amala bihi falaysa lillahi haajatun fi an yada'a ta'amahu wa sharabahu qofka ilaahay muraadka ma laha cunadiisa iyo cabidiisa hadduu iska daayo kol hadduu ka tegi waayo hadalkii xumaa hadalka xunayn gaalnimada ahayn soomka ma jabiyo laakiin ajrigu naaqusaa marka iska dayntiisa sunnayaashay ku jirtaa qaarkood baa waxay culimada qabaan inkastoo daahiriyada u badan yihiin hadalka xun laftiisa aflagaadada iyo darrada ah inuu soomka jabin karo laakiin sidaa looma badna xadiidkuna waxa uu ka hadlaya waa waxa xagga qofkii ajrigiisa uu yaraanayo sunnayaasha waxaa ka mid ah siwaak inuu qofkii cadaydo ama ramadaan ha ahaato ama yaa ahaan mar walba waa sunna camal ee cadaydo gelinka hore iyo gelinka dambena waa la cadayan karaa ama siyaaku saa'imin bacda zawaal fakhtiira lam yukrah wa yaxrumu lwisaal waa kii zubadka ku lahaa sheekhaasoo madhabta shaaficiyada baabu ka mid yahayba rasuulkuna sala allahu calayhi wasalam cadayga waa amaanay waxa uu leeyahay asiwaaku madharatun lilfam mardaatun lilrab cadaygu ilaahayna wuu raalligeliyaa afkana waa nadiifiyaa lowlaa an ashuqa calaa ummatii la amartuhum bisiwaaki cinda kulli salaatin aw wuduu cadayga waan fari lahaa buu rasuulku yidhi sala allahu calayhi wasalam markastay weysaysanayaan ama tukanayaan ummaddu faral baan kaga dhigi lahaa laakiin waxaan u diidayaa culayska ummadda sidaa daraaddeed baan ugu waajibin waayo sunnayaasha waxaa ka mid ah alijtihaadu fi lcibaadati في العشر الأواخر من رمضان إن لابد ذا عبادة نوعية ذا الدول تكشدها بينك يا قرآن كل آخرية اعتكافك عبادة إنه بشهر رمضان سمينا نوعية ذا الدول طبعا كتبين لابد ذا سيدا سوها النبي صلى الله عليه وسلم سيدا حديث الصحيح عائشة أي نقول نيش وعلى ذلك إذا دخل العشر الأواخر أحيا الليل وأيقظ أهله وشد المئزر ترى الله مركات طبعا كتبين بشهر رمضان يسوق لا أيوة نبي عبادة هذين كي كنا لين شيء لا وقت يروح كنا لي عبادة على كنا لي ذلك يدك هي وقت وعبادة نولية وقت يكون نولين شيء هذين كذا كلام
waqtigaad uu geeriyooday adiguna waa dhimatay haddii meesha cibaada jiro ehelkuna si ay ugala qayb qaataan khayrka nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam iyagana waa toosin jiray xaasaskiisa iyo ubadkiisa iyo ehelkiisa si ay ula jaan qaadaan cibaadada guntigana dhiishu iskaga dhigi jirayo naftu dee culayska ay dareemaysa xagga cibaadada u ogolaysiin jiray dumarkana galmadooda iyo mucaasharada iyo mucaamaladooda waa yarayn jiray intaa waxa sii dheer wax shayga loo yaqaano qodobka u dambeeya mubaaxaatu siyaam qofka sooman waxyaabo isaga bannaan oo dadka qaarkood ay qabaan ama laga yaabo inay ka shakiyaan uu soom ka jabinayn kale waxaa ka mid ah sidaa horeba aynu soo sheegnay gelinka dambe in la cabaydo madhabta qaybo ka midii way jiraan oo odhanaya madhab shaaficiya cabaydo ma habboona bisha ramadaan